بسم الله الرحمن الرحيم. وقتigaas ana waxaan baan joogay 20 jir aan ahaa waxaan ahaa boolis baan ahaan jiray booliska laga soo wareejiyay ciidamadii militariga la dhisay ciidamadii qaarkii booliska laga soo gooyay militariga lagu daraan kamid ahaa waxaan joogay markaas maaragtay meesha xalale la yiraahdo hadda oo bootiga la dhigi jiray oo ciidankii maaragtay la dhigi jiray علي بولاي oo meeshaas ku xareysnaa ayaan meeshaas halkaas dadkii loo geeyana marka hadee maalintaas xorriyadaas oo gobolada waqooyi kaliya ma ayaan dhalan dadka Soomaalida oo dhan mid u dhalatay ahayd waxay markii horeyso dhul Soomaaliyeed shantii oo xor noqdo markaas waxay xorriyad u timid u dhalatay dadka Soomaaliya oo dhan inkastoo halkaas hay'ad waqooyi meesha Ingiriiska laga kiciyay marka waa soo dhaweynaya aad farxad u tahay inaan maaragtay ilaa hadda soo gaaro oo maaragtay xusuusto aad waana Soomaaliya oo dhan oo hambalyeynaya dhinacaas waqooyiga dadka jooga oo u sii hambalyeynaya kuwa soo halgamay oo loo dhibaateeyay heeladoodii ka nool waxaan leeyahay sabariyan Allah idinka siiyo heeladiini xorriyadda u dhibatay adinkana kuwii ku istiraha xorriyadda Allah idinka dhigo waa gartay waqtigaas aad ii sheegtay waxaad ahayd 20 jir ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo ku sugnaa Muqdisho ma xasuusan kartaa waqtiga dadkii hormuudka u ahaa inay xorriyadda qaataan gobolada waqooyi xasuusaan iyadana aqaana waxa koo ahaa maxamed ibraahim cigaal oo xisbiga SNL madax ka ahaa asaga ninkaas ayaa ayaa koow ka ahaa xorriyadda soo halgamay hadda dad ku dhintana waa jireen ku dhintay oo ku aqartay Shafashir iyo ay kamid ahaayeen iyo Faarax Omar iyo ay kamid ahaayeen marka raggaasuna waa raggeed u soo dhimay halgankii ku dhintay dadkii aan taasiyeynayay weeye helada waxay ka nool waa gartay dad kale badanina waa jiraan oo maxamed ibraahim ciyaar oo kaafu ka ahaa madaxda ka ahaa dad badan oo soo halgamay meeshii oo hawshaas ka qayb galay xiligaas waxaad ku sugnayd Muqdisho sidaad ii sheegtay oo gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska sidee looga dareemay gudaha caasimadii aad ku sugnayd oo Talyaanigu gumeysan jiray ma hadda wax la filayay hay'ad wala sii ogaa inay xorriyadda qaadanayaan maaragtay waa xiriir baa jiray halkan xamar ka socday iyo wixii xagga ka socday xiriir baa jiray aad oo xiiso badan oo labadii maamulkii xagga ka jiray iyo kuwii halkan jiray ay dhexdooda ka socday waliba maaragtay ra'iisul wasaarihii waagaas joogay Cabdullah Ciise oo daaqiliga ahaa iyo ra'iisul wasaaraha cigaal oo xagga asaguna ka ahaa maaragtay madax ka ahaa marka waa la isla socday aad la soo socday ilaa iyo saacad ugu dambaysa maalin walba meesha baraysa waa la ogaa marka saraakiishii Talyaaniga ee Muqdisho joogay iyo koonfurtaba iyagu ma dareemayaan dhaqdhaqaaqa kuwa koonfurta joogo ee Soomaalida ah xornimada raadinaya wax un tuhuna ma soo galay ama iska caabina oo ay kaga soo horjeedaan in dhankan koonfureed ay xorriyad hesho dhankan ma dareeman kaliya maaha delegation baa la isweydaarsan jiray oo halkan inta ka taga xagga tagi jiray qaar baa xagga inta ka yaabaan halkan imaan jireen qaarka xagga loo dirayana ku wax Talyaaniga raaci jiray oo madaxda Talyaaniga waagaas oo afka Ingiriiska garanayay wixii halkaas ka imaanayana markay yimaadeen dadka la kulmaya Talyaani waa ku jiray Talyaanigu ama haraba inuu sarradana waa ogaa Soomaalidaas inay xorriyad qaadanayso labada Soomaaliyeed inay israacayaan waa ogaa labada goor waa ogaa ku buuxay wax dhibaatana asoo mana hor istaagay absolutely ma hor istaagay waa gartay ma jiray cilaaqaad Soomaalidii ku sugnayd dhanka iyo waqooyi oo markaas iska qaaday heeriyadii gumeysiga Ingiriiska ay la soo sameynayeen kuwan ku sugan koonfurta oo waqtiga wajahaya cadaadis iyo caburin kaga imaanaya gumeystihii Talyaaniga fiiri waxa runta laga sheegaa ayaa fiican maogta Talyaanigu markuu soo noqday
ilaa iyo maaragtay maalintuu tegayey xorriyadda laga qaatay wax weyn cadaadisa lagalama kulmin waa jireen ilaa iyo 2 sano oo horeysay cilaaqaadka maaragtay leegada iyo talyaaniga inuu si fiicnayn laakiin markii dambe waa hagaagay aad u fiicnaa maalin walba oo sii gudbana oo sano walba la gaarana waa sii hagaagayay macaamilka talyaaniga iyo soomaalida ayadoo farayo faraatay la yahay oo raali ka yahay oo diyaar u yahay ayaa xorriyadda maalinteedii la gaaray oo la qaato 60 sano ayaa ka soo wareegatay markii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumaystihii ingiriiska bal Soomaaliya 60 sano kadib waqtigan aan joogno ma tahay mid xor ah sida ku muuqata adigu maya xornimo oo maaragtay mid oo maaragtay iska hadaf ah ayaan haysaa xornimo dhaqaale ma haysano xornimo nabadgelyana ma jirto xorriyad maaragtay dhulkii abyanaantii midnimana ma jirto maaragtay hadda xorriyad maahan mana u dhowaa marka maxaad ku tilmaami lahayd xorriyadda haatan Soomaalidu haystaan maxaad oran lahayd oo aad ku tilmaami lahayd waa mid jiis weey waa xorriyahan marka ilaahay naga bixiyo laakiin calankii iyo waa la haystaa iyo maaragtay iyo magaciiba waa la haystaa laakiin saan ku sheegay dhaqaalihi baan xor ahayn midnimadii baan jirin oo u jeedaa siyaasadii baa maaragtay faragelin xoog leh lagu hayaa dhulkii baa la isku haystaa dhulkii badii baa la isku haystaa maaragtay wareer iyo waali wey waa wareer wey wareer